waxa maantaan hadalkaygana daaran yahay waxyaalo badan anigoo muddo badan ka soo shaqeeyey Somaliland xog dhaba ka haya waxa aad u badan ayaan maanta bixin doonaa insha Allah. Number 1 markaan saraakiishan magacyadooda sheego Maxamed Hugur Xirsi hoggaanka amniga wey Abbaanduule Axmed Xasan Xirsi cawaale wey howlgelinta waxa weeye Cabdullaahi Xuseen Maxamuud markaan midkaan ku noqdo wuxuu ka tursumayaa suldaankii guud ee Hargeysa ka turjumaya suldaankii burco ka turjumaya kana kii ceergaabo ka turjumaya haddii aan la yidhaahdo anna kii odayga waxaba ahaa ka turjumaya insha Allah. wax badan ayaan hoos u dhigay hadalkayga maanta waa dilaacinaya 28 sanadood ayaan ka soo shaqeynaya ciidamada Somaliland waxa hadheeyay dulmi 9 sanadood way maanta kulmiye intuu wadanka haystay waxa ku dhintay 12 sarkaal iyo 16 ciidanka qaranka oo lagu dilay goob kasta meel abli ka jiro intaba waxa dilay dawladda waa cadeynaya maxaa u dambeeyay baa la meyd kaalisiiso waxa u dambeeyay labadii sarkaale boorame inta uu yimaadeen barasaabka iyo taliyaasha qaybaha ayay waa nala dilayaa nabadbaadiya war socda lagu yiro gaari bashada lagu shubay in yaro reerka yaga lagu dara isagiina waa lagu dhaawacay waxa la helayay bilays ilaaliya waxa la helayay military ilaaliya waxa la helayay asluub ilaalisa waxa soo dhow waxa ka dambeeyay barasaabka iyo wasiirka arrimaha gudaha waayahay taas waa taa waa caddahay berbera waxa lagu dilay Casayr taliyii qaybta booliiska lagu dilay oray laascaanood waxa lagu dilay Cismaan Yuusuf Nuur gaashaan la sare Cismaan Yuusuf Nuur oo ahaa taliyii qaybta 12 ayaa lagu dilay waxa dishay dawladda waa cadeynaya waxaan ku cadeynayaa waxa uu xiran madaxii nabad sugidda ayaa u xiran iyo qaybo wato waaya taasina waa taa oray Casayr waxa lagu dilay berbera taliyii qaybta booliiska way cidna looma hayo way ka kaalay qorlugud waxa lagu dilay laba sarkaal abbaanduulihii gootada hayaha howlgelinta lagu dilay cidna looma hayo yana way labadii sarkaal ee reer boorama booliiska iyo asluubtaha waxa lagu dilay fadhiyar markii la diray waa telefoon laga daba diray ragna loo ururiyay barasaabku markaa wuxuu qaban waaye intaas halkaa iga taalo barasaabku wuxuu yiri caar uu dhoofiyaa ingiriisku tagayaa gaadiidkiisa iyo tigreesiina uu daboolay oo meel ku xareystay aqalala lulku haddii alla yidhaahdo wasarka doonaa gurigaagana waa aqaanaa insha Allah ismaan lahayn anigoo godab hore ku tirsanayay maanta TV-yada waxa ka oran doona ismaan lahayn gaarigaagu wuxuu igu yimi qardho
waxaan soo saaray maxbuus gacan ku dhiglaa ayaan soo saaray oo dilay gabadh markaad qaban kari weyday gacan ku dhiglayaashii gobolka inaad sidaa u hadashaa waa garowdaa inaad sidaa u hadashaa waa garowdaa waayaha mid kale markaan dib ugu noqdo cid kasta oo mucaalad ku ah dowladda kulmiye ama musabixi iyo xulufadiisa waa soo dhaweynaya waa arkaysaan boqorradii dalkaa la erinaya wixii la doonaa lagula hadlaya waxa laale wixii aan ahayn wixii dembi ka galay ummadda waa soo dhaweynaya gacan ku dhiigle kufsi tuug intaasiba xaaraan bay naga tahay wixii kale ee ummadda islaamka ah ee fakeraya ee dowladdan maanta jirta ee somalilan sheegatay ka soo hor jeeda waa soo dhaweynaynaa waaya intaa markaan ka gudbo ilaa 1982 ilaa 1982 ilaa aad daatayn gacan ku dhiiglayaal ayaa xukumo dalka jamhuuriyadda somalilan waaya bid by bid markaan u eego ama aan qodob u eego gaalkacyo wixii ka dhacay waa loogaa baraagihii baa lagu dumiyey dadkii waayahay kuwii ku dumiyey waxay joogaan hargeysa waa ina kaahinayana bixa markaan carfo labadaa wey 1994 waxaa ka bilaabmay hargeyso iyo burco dagaalkii maryaaloolka la odhan jiray iyagaa waday waxaa ku dhintay 840 ruux burco waxaa ku dhaawacmay oo ku naafoobay 640 iyagaa sababoo ahaa iyagaa laayay iyagaa dhaawacay maantana inay madaxweynayaal iyo arrimo gudood sheegtaan bulshada iyo shacabka waxaan u sheegayaa waxaas oo dhan iyagaa galay haddeerna waa ku jiraan 4 sannadood buu socday dagaalka ceelafoyn dagaal beelad intaa ma socdo iyagaa xagga dambe kaga jira okay intaan markaan ka imaado qoladan abtiyaday waxaan leeyahay cilidii lama nihin nimankaasaa col idinlaa kuwaasaa wallaahi ah oo bilaahi ah oo tallaahi ah ay sababtu tahay dembi waa la yaqaan maxaa loo qaban waaya dembiilaha haddii dawladi jirto maxaa loo qaban waaya dembiilaha maxaa ummadda loo xidhxidhayaa maxaa shacabka loo xidhxidhayaa waaya waxaan maqlayaa reer idlaa 150 laga soo xidhaya weer gacanka gudayaasha waayo yaa fududeeyey inay laayaan cid waxaa fududeeyey barasaabka gobolka taliyaasha qaybaha iyo arrimaha gudaha waayo sababtoo ah sharcigu siduu ahaa ayay qaban lahaay waaya intaa markaan ka imaado golaha shacabka guurtida iyo baarlamaanku maxay u fadhiyaan meesha may nimanka ka qabta dalka may impeachment sameeyaan may cod u qaadaan haddii dalka laga rabo inuu hagaago nabadgelyo lagu soo dabaalo ha laga qabto impeachment loo sameeyo cod loo qaado way jirtaa nin kasta oo barasaabaya nin kastoo taliyo qaybaada waxbaa la faraa annaga ahaan jirnay oo joognay waanu diidnay markaanu diidnay ilaahay baanu maga gallay saraakiishii koreeladii diiday arrinkaa ee iga daba yimi aad iyo aad baan u hambalyaynaya sanaag bari aad iyo aad baan u hambalyaynayaa waa guulaysanayaan waanu wada guulaysanaynaa isku dhinaca baanu nahay dhufayskaanu meelkooda geli doonaa gobolka sanaagna annagaa leh ma aha nin ka yimi etoobiya ma laha annagaa leh waa la ogyahay
وصبيح حرشين بكل شيء إن كان نقول الله كل شيء لبض كل كسرت بيحللي ورها الله قبض الدلك اللي مك وردلك كقبض اللي مك وردلك اللي مك كقبض هدي الدلك اللي هو هي هدي ومد اللي هو هي ورها الله قبض هل كان مرة يسوي وقتي بالشوي أنت غير سوى الله وحلاه إلهي أنت كبر قدان واركم الدهر هذا وح كل الدهر هذا وسكك عيه وح برلمان كي يقرص له وحلاه يعني واروح عضو هذا وضيعش دقنك وحلاه وراك وح هايجينا تشابك وراك أركب هدي الله أود له قلاده إن شاء الله odagayara bara saabkaana isaga ka tagi doona waa isaga soo tahriibay haduu Yurub wax ku og yahay isaga joogi lahaa anigu taginima baasaboorka meesha laga qaato ma aqaan tagina maayo guriga ku go'ay doona hadii Allah yiraaho insha Allah aad iyo aad baan u salaamayaa TV-yada aad iyo aad baan u salaamayaa wariyaasha aad iyo aad baan u salaamayaa dhaqanka reer Puntland دولة بالشغوين الصوماليات آدي آد بانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال هل سؤال بانكو يدينا يا سؤال شكو يدينا وحوية ولين بنشرتا عيد كم بضوضياش رقاك وحوى هذا اللي لسه يسمى في قيمة الدولة أوراد مركز سؤال شاش سيسحا وقتوابو مركز قدها كتري والله غير كيغابا يتمي والله يسواف برن وايي markii kadibna anagoo ku guda jira arinta ayaa dawladda soo dhex gashay kadibna dagaal baa laga dhex dhacay waa arrimahan ku yimid Puntland iyagana sabab u ahaa waray waxaan ku weydiinayaa marka hadda hadii kula soo xiriiraan madaxda gaar ahaan madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha aad u dhalisho miiska hadalka aan isugu nimaano taas iyada ka waxaan la hadlayaa marka ay suuro geliyaan arrimihi gacan libaax marka ay 8 qodob ee gacan libaax suuro geliyaan ayaa noqon hadalka ogolanay insha Allah muxuuyadiin hirad qaatun marka arinta kaaga jawaabo maxaa dhul laga eegayaa dhul maxaa laga eegayaa aqoon leedahay oo mujaahidiin leedahay oo saraakiil leedahay maxaa laga eegayaa dadkii baa la gowracayaa dawladii baa gowracaysa ay xukumaysay ayaa dadkii laynaysa maxaa laga eegayaa dhul waxaan xal u arkaa in baarlamaanka iyo golaha guurtidu nimankan impeachment u qaadaan mid kale aan yar xusuusto waxa had iyo jeer la yiraahdaa qaramada midoobay oo eeyada United Nationska waxa weeye maxkamada caalamiga ah oo xasuuq qudarada maxaa loo saarlayaa iyaga maxaa loo saarlayaa barita kamaal haddaan iminka dagaal qaado waxa la eedayn doona la oran doona wuxuu sameeyay wax xuquuqda bini'aadamka dhinac ka ah maxaa iyaga loo saarlayaa ilaa 1982 ilaa adaatayn ayay wadaanay maxaa loo saarlayaa dadkan yagu maqan ilaahay baa u maqantay aaway wax sheegta aaway xaga jiraan soo inay wax ka qabtaan ma inta aan gacanta gelin wax laga qabto aad baan idin salaamaya